Assalaamu calaykum saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Caasim Media ku soo dhawaada qaybtii 11aad ee qisadii Hodan iyo Haaruun. qaybtii hore waxa inoo joogtay Hodan oo ka soo laabatay reerkii aabaheed kuna soo wajahan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Hodan waxay ku soo laabatay magaalada Muqdisho waxayna ku degtay gurigeeda oo ay awal deganeed oo waxa uu yaalay shaqooyin fara badan oo shirkadda ah. Hodan ayaa maalintii xigtay aaday shaqadeedii waxayna aad ugu haminaysay in ay la kulanto gabadhii ay soo korinaysay muddo 4 sano ah. waxayna soo xasuusanaysay mar walba sida ay maamada u ahayd hooyo wanaagsan oo ay mar walba u garab istaagi jirtay. Hodan ayaa 2 maalin oo ay Muqdisho joogtay fursad u weysay in ay reerka soo booqato waayo kulamadii dhammaa oo ay dib u dhigtay ayay 2 maalin ku soo gabagabaynaysay. maantaba saacadu markay ahayd 4 saac barqnimo Hodan waxay aaday gurigii Haaruun waxaana albaabka ka furtay maamadii guriga. Hodan oo dhoola cadeynaysa oo leh hooyo macaan hooyo qaali maxaan ku xiisay ayaa ku booday oo laabta gelisay. Hodan iyo maamada ayaa ilin farxadeed ka timid waxayna wada fariisteen qolkii fadhiga oo xiisa dartii waxay ilaabeen inta saacadood ay sheekaysanayeen waxaana la gaaray duhur. Hodan ayaa gashay qolkii uu ijaarnaa oo ay guriga ka degneed balse waaba qolkii 6 sano ka hor ay deganeed. waxayna ku soo xasuusatay waqtiyadii adkaa oo ay ku soo qaadatay dhaxdiisa iyo inta jeer oo ay dhaxdiisa ku soo uysay. waxay heshay buugaagtii ay wax ku baranaysay iyo sawiradii qalinjiminteeda kadibna waxay u kacday salaadii duhur. waxaa iskuulka ka timid gabadhii yareed ee in Haaruun ahayd waxayna aragtay boorsadii Hodan oo fadhiga taala. waxay u carartay qolka Hodan si ay u aragto. qolka Hodan ay soo gashay waxay aragtay in ay hurdayso Hodan kadibna way iska laabatay balse Hodan oo maqlaysay dhawaaqa furitaanka albaabka ayaa aragtay gabadhii oo sii aadaysa dhanka iyo albaabka. Hodan ayaa intay istaagtay soo qabatay gabadheeda oo sii socota. intay soo jeedisay ayayna laabta gelisay oo intay sariirta soo fariisisay ayay la hadashay oo ay u sheegtay in ay tahay habaryarteed Hodan oo ay xasuusta ka maqnayd. intaas kadib gabadhii yareed ayaa aad u faraxday oo mar kale laabta gelisay Hodan waxa ayna ka codsatay inaysan cidlaynin mar kale. Hodan ayaa u ballan qaaday in aysan mar dambe cidlayn doonin balse aysan aaba Haaruun u sheegin in ay Hodan tahay oo ay doonayso in ay u sheegto maalin kale oo ay doonayso in ay kedis ugu dhigto wayna ka yeeshay. waxaa la gaaray maqrib waxaana yimid Haaruun oo gabadhiisa ayaa soo dhaweysay waxayna u sheegtay in ay haba Nuura timid. Haaruun dan ma uusan ka gelin imaanshaha Nuura wuxuuna aaday qolkiisa si uu ugu nasto. Hodan waxay fadhisay dabaqa kore dushiisa meel kuraas fadhi ah ay taalo si ay hawo fiican u qaadato oo nafis u dareento maadaama xusuusaha tirada badan ay qolkii ugu soo baxday. waxaa la gaaray xilligii cashada balse Hodan casho dhanba nafis uma hayn oo waxay maamada u sheegtay inay casho u soo degaynin oo ay u baahneen. Haaruun kuma uusan arkin Nuura miiska cashada mana oga inay Hodantii uu raadinayay ee uu ku qaldayay tahay. Hodan waxay iska seexatay kuraastii fadhiga ahayd oo waxay ka cabsatay haday hoos u soo degto inay is arkaan Haaruun. asagana wuxuu fadhiyay dabaqa hoose wuxuuna sugayay inuu arko iyada maadaama uu 2 bilood ku dhawaad uu muuqeeda arag. ugu dambeyn Haaruun wuxuu aaday kor si uu u soo arko xaaladeeda iyo sababta ay cashada ugu soo degi weyday balse wuxuu u tagay ayada oo hurdaysa oo wuxuu fariistay kursi horteeda yaalay wuxuuna ka fikirayay sida ay ugu eg tahay xaaskiisa. waxa uuna fiirinayay wajigeeda aad moodo ilmo yar oo hurdaya muddo ku dhow nus saac kadib uu istaagay wuxuuna isku dayay in uu ka kiciyo hurdada oo uu ku yiraahdo soo xaro gudaha soo gal. waxay naftiisa u sawirtay in uu qaado oo uu qolkeeda geeyo kana soo tago balse intuu sii istaagayay ayay indhaha kala qaaday oo ay aragtay ninkani soo istaagaya oo horteeda taagan balse miiska u dhaxeeyo. Hodan ayaa soo fariisatay oo istaagtay una jihaysatay dhanka dabaqa hoose waxayna aaday qolkeeda. waxaa la gaaray subaxii waxayna Haaruun iyo Hodan kala aadeen shaqooyinkoodii ayagoon is arag. Haaruun wuxuu mar waliba dhibsadaa joogitaanka gabadhan iyo deganaanshaha ay degan tahay qolkii Hodan maadaama qolka uu qaas u ahaa Hodan oo uu waqtiyada qaar ku dareemi jiray nafis markuu seexdo qolkaas. wuxuu isweydiiyaa sababta ay ula soo degtay iyaga oo ay gurigeeda ugu soo tagtay.
iyadoo ah gabar ganacsi weyn leh oo lacag leh oo heli karta in ay guri aad u weyn gadato, balse mar walba uu Haruun is dhaho ku qayli gabadhaani oo guriga ka saar, waxaa celisa hooyadiis oo u sheegta in ay gabadhaani tahay gabadheeda oo kale. Guriga ay deganeedna ay ku dareemaysay cidlo, maadaama reerkooda uusan joogin magaalada. Halka ha inoo joogto daawadayaal qaybtii 11aad ee qisada Hodan iyo Haruun. Ha iloowin daawade inaad muuqaalka like saarto. Haddii aad channelku cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe taabo fura gambaleelka si aad ula socoto qaybaha xiga. Tan intaan kulmayno qaybta 12aad ee qisada, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.